Assalaamu calaykum daawadayaal. Waa barnaamijaynu ku dul istaagi doono aqoon darrada bulsho iyo wajiyadeeda kala gedisan ee ay leedahay. Waxaan filayaa inaan waxun ka faa'iidi doono muuqaalkan. Soo dhawaada. Aqoon darrada aan tirmin waxa laga wariyaa filosoofkii Scottish haddii aanan magaciisa si qaldan ugu dhawaaqaynin hadal caan baxay oo ahaa waxa kaliya ee aan ogahay waa in aanan waxba aqoonin. Waa hadal ugu quus goynayo sheegashada aqoonta oo sheegashada lafteedu ay tahay salka aqoon darrada. Waxa kale oo laga hayaa naftaada isbar. Waxa kale oo aaminsanaa in ay tahay aqoontu wax lagu hirto tahayna aqoon darradu liidasho iyo hoosayn. Falsafadyahankii kale ee Baltunin waxa uu aqoon darrada u arkayay in ay sees u tahay xumaan oo dhan. Filosofiyadan dabadood ama filosofiyadan gadaashood falsafadyahano badan ayaa isku dayay in ay qeexaan aqoon darrada qaybaheeda ableeyaan oo ay kala soocaan nuucyadeeda kala duwan waxa kale oo ay isku dayeen inay xadidaan oo ay soohdin u yeelaan saamaynta aqoon darrada bulsho iyo siyaasadeed. Waxayna bedka keeneen ama ay soo bandhigeen qaababka ay bulshadu uga takhalusi karto aqoon darrada ugana fogaan karto bulshadu raadadka xun ee aqoon darradu ay nolosha ku leedahay. Daraasaadyo badan oo ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in aqoon darrada sababteeda ugu weyn tahay wax akhris la'aanta iyo wax qorid la'aanta. Dadkuna aanay xiise u qabin inay aqoon kororsadaan. Maskax xidhnaanta bulshada iyo qaadashada aaminaado khaldan ama fikirro khaldan oo dadku ay iska aaminaan oo aan laga baaraan degin sababahan kasekow. Waxa jiri karta aqoon darro si ku talagal ah bulshada dhexdeeda loogu abuuray looguna dhex baahiyay iyada oo looga dan leeyahay gaadhida yoolal gooni ah iyo ujeedooyin gaar ah sida kuwa ganacsi. Qaababkan dambe waxay ku suuroobi karaan iyada oo dhinacyada qaar ay u bareeraan minta ama ka takhalusida ra'yiga guud ee bulsho sidaana loo dejisto habab iyo jidad lagu gaadhayo yoolka gaarka ah iyo danta markaa la rabo in bulsho laga dhex fuliyo. Aqoonyahankii reer Ingiriis ee Peter giisa aqoon darrada sooyaalkeega iyo xagal caalami ah waxa uu aaminsan yahay in aqoon la'aanta ka dhalata wacyi la'aantu aanay mudnayn baadhid iyo u kuurgalid midna. Aqoon darrada la faafiyaa ay tahay ta u baahan baadhitaan iyo daraasayn. Waxa uu buuggiisa ku qaadaa dhigayaa aqoon darrada noocan ah iyo saamaynta ka dhalata iyo dhibta ay keento. Waxa uu dib u raacayaa sooyaalka dheer ee aqoon darrada waxaana uu daraasaynayaa saamayno ay yeelatay xilliyo kala duwan. Aqoon darrada sida badheerka ah bulsho loogu dhex baahiyaa. Carabtu muddadii Islaamka ka horreysay waxa ay u yaqaanaan xilligii jaahiliga. Dadka kalena waxay qarniyadii dhexe u yaqaaneen qarniyadii mugdiga. Xilligii baraaruga aqoon la'aanta waxa loo arki jiray seeskii keligii talisnimada, aaminaadda indhabeelnimada ku dhisan iyo khuraafaadka. Waana waxyaabaha la rabay in laga takhaluso casrigii fikirka iyo maangalnimada. William Beveridge wuxuu aqoon la'aanta ku tirin jiray 5 waxyaabood ee halista ku ah jiritaanka aadamaha. 5taas oo kala ah aqoon darrada, saboolnimada, cudurrada, musuqmaasuqa iyo shaqo la'aanta. Xilligeennan innagoo aynu nool lahay waxa dunida ka jira aqoon u gaar ah oo lagu daraaseeyo jahliga iyo dhaqamada keena aqoon darrada. Agnotology waxa la daraaseeyaa hababka kala duwan ee loo abuuro marin habaabinta iyo aqoon darrada bulsho loona faafiyo. Tani waxa ay ka dhigan tahay in aqoon darradu aanay meel cidla ah ku samaysmin si saamayno bulsho iyo mid siyaasadeed ay leedahay. Aqoontani waa hab lagu baadho sida loo abuuro aqoon darrada habab kala duwanna loogu faafiyo iyada oo looga dan leeyahay gacan ku dhigidda masiir bulsho iyo awooddeeda. Aqoon darrada waxa lagu faafin karaa iyaga oo la baahiyo xogo u eeg aqoon si marin habaabin ah lana dhexmariyo warbaahinta iyo dhuumaha kale ee nidaamyada siyaasadeed ee shirkadaha waaweyn waxay dhexmarsadaan. Faafinta aqoon darradu waxay kaalin weyn ka qaadatay guusha waxyaalo badan oo marar kala duwan la soo saaray